runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinkula kulmo guddiga doorashooyinka ee siid ee Somaliland oo ay hogaaminayaan gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi. waxaan aad u soo dhaweynayaa heshiiskoodii, waxaan aad u soo dhaweynayaa sida ay u wada tashteen, waxaan aad u soo dhaweynayaa midnimadoodii iyo halkay u socdaan si ay ku gaari lahaayeen waa soo dhaweynayaa. waxaan rabaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo mar allaala markay howlahooda soo diyaar garoobaan anigana aan diyaar u ahay sidaan gacan ugu siin lahaa hawshaas fulinteeda. waxaan rabaa guddiga doorashooyinka ee Somaliland siid Somaliland inaad gacmaha isqabsataan, inaad feejignaataan, inaad hawsha si wanaagsan oo transparency ah oo cadaalad ay ku jirto aad u maamushaan, wada shaqayn dhow aad la yeelataan gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka. waxaan rabaa mar allaala meesha ay ku heshiiyaan gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha diyaar ayaan u ahay. makaankay ku heshiiyaan ama goobtay ku heshiiyaan oo doorashada lagu qabto diyaar ayaan u ahay. fikir kastoo ay keenaan oo wadajirkooda ah waan garab taaganahay. shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa, waxaan halkan rabaa inaan idinkaga caddeeyo in Somaliland doorashadeedii ay hore u socotay. waxaan sugnaaba waa doorashadii aqalka sare ee Somaliland. waxaan leeyahay tiimka Somaliland hambalyo. shacabka Soomaaliyeedna garab waa inay ku siiyaan walaalahooda Somaliland siday u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah. aad ayaa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.